geedka oo taariikhda eta 28 bili 7 2022 may ba qabsoomay shirkii golo wasiirada oo shir gudoomiyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen shirkaas yaa unka horeyntii may ba lagu tacsiyeeyay marlamaad iyo mar saddexaad macal golo wasiirada iyo madaxweynaha marlamaad ku tacsiyeeyna qaraxii oo foolo xumaay oo jeysideen nimanka nabadiidka ee jeysideen walaalkan marna saaxiibkaana gudoomiyay degmada marka Cabdullaahi Waafow ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan naxariisada sabr iyo iimaan ilaahay noo wada si eheladiisu ku geeriyoodina sabr iyo iimaan ilaahay ku si tacsiidaas ku bacdana may ba cambaarayna shirka golo wasiirada ka cambaarayay dhibaatadan ama markasta hanagnagati nimanka arraxan laawayaalka ee oo nabadiidka ee markasiyo injeysidayaan dadka hal doorka ummadda may leedahay hormuudso andhoosho markasiyo injeysidayaan yaa shirka golo wasiirada ka cambaarayay cambaarayn kula lahaan ka jeedi marka intii markastan la ku taxdiro nimankaas intii ka shaqaleyn ama ka mashquulsiin intii dhibaato injeysidan ummadda Soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed intii markastaba shacabka iyo xukuumadda isla wada shaqeeyaan meelhan isku jeesidaan nimankaas oo markasta fadayaan intii ummadda ku horbaraan dadka oo hormuudka oo handhoosha tacsiidaas oo golaha wasiirada iyo madaxweynaha ku bacda markii la ku gudubi mayba wasiirka amniga ku dhuunsaday warbixin oo ka saabsan amniga guud ahaan deegaanada koonfur galbeed intii amnisho sugani inkastoo oo qaraxyo meelaha qaar ku mid ah ku dhiyeen sida afgooy oo kale iyo marka shalay qarax ku dhii dadkii ka dhamadana ilaahay intii naxariisa dadkii ka dhaawacmeen intii ilaahay caafi wasiirka marka amniga guud ahaan koonfur galbeed intii uu safeeyeen in sheegay may kaleedo dagaalo ku cusboonaadeena xuduudda Soomaaliya Ethiopia oo wali geekan howlgalo ku socdeen liyu booliski iyo ciidamada koonfur galbeed oo isgarabsadayaan howlgalo lagu fuliyahay howlgaladaas oo lagu harseedo marka ka cirab tiro doona nimanka khawaarijta oo nabadiidka oo markastaba galaafaday shacabkaana wa khaasatan reer koonfur galbeed amniga markii uu ku gudubna mayba warbixin la ku dhuunsaday dhinaca gargaarka wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka iyo guddigii madaxweynaha aan xil saaray abaaro koonfur galbeed wasiirka mayba nin sheegay intii oo hay'ado badan ajiibeen oo qaarshoon la sugahayo koonfur galbeed la tacaala doona madaxweynaha iyo golaha wasiiradan mayba jeediyeen shacabka koonfur galbeed dhamaantii intii iskaaladan isgarabsadan iscaawiyaan haddii oo iscaawiyaan markaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala caawiye ummadda kale walan qobado korta wasiirka gargaarka mayba ka baaqay intii dadka markaas la wacyi gali oo intii iskaalmaysadaan may kale warbixin la ku dhuunsaday wasiirka dekedaha wasiir ku xigeenka dekedaha yaa warbixin la ku dhuunsaday siina intii dekedaha la dardargeli doona dekedna may leeyahay koonfur galbeed linsuubi doona balaankii uu ka shaqeeyay lahay iyo haniin bandhigi wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha may kale warbixin la ku dhuunsaday anagoo wasiirka wasaaradda warfaafinta wasaaradda shaqada horumarka iyo suubiyahayd iyo loo dhuunsaday wasaaradda warfaafinta briyooyinkan ka dambeeyay mayba suubiyaasay horumar bilaaran oo dhinaca meediyaha iyo dhinaca shuruucda saxaafadda marka warbixintaas iyadoo kooban iyo la dhuunsaday maray rajeynaa insha Allah wasaaradda warfaafinta waqtiyooyinkan ha socdantii eedlin bilaari doona shaqadeena horan sii socdo doonta insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaanagda gabagabadii mayba shirkaha gabagabayaha hiray madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen isugu lama aramood ku codsaday golaha wasiirada oo lamadaas aramood intii amniga lagu shaqeeyay faylalinka shaqeey la xoojiye maadaama nimanka nabadiidka iyo ka hoolinyin markastaba intii oo dhibaatayaan shacabka koonfur galbeed iyo dawladdiyo iyo dhinaca abaaraha intii la isku kaalada oo markastaba garab lasi ninis gargaar iyo madaxweynaha shirshay ha ka gabagabaayay idan ma santiin intaas shirka ha ka gabagabaawi shirkii golaha wasiirada